Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waa Warsan TV. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee saakay. Mooto bajaaj ay la socdeen 3 nin oo ku qarxaday degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Dowladda Itoobiya oo sheegtay in aan la arki doonin ciidamada la yiraahdo ciidanka Liyu Police ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. haddii aynu ku bilowno faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa mooto bajaaj ay la socdeen 3 nin oo saake ku qarxday qaybo kamid ah gudaha degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. afhayeenka booliska Soomaaliya Sidiiq Doodisho oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in mootada ay xoog ku soo dhaaftay bar lagu hubiyo gaadiidka oo ku taala degmadaasi, balse iyadoo oo ay ceersanayaan ciidamada ammaanka ay ku qarxday waaxda General Daawud. Sidiiq Doodisho ayaa sidoo kale xusay in laga hortagay weerarkan isla markaana qorshihi ay damacsanayeen raggan la fashiliyay sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu tilmaamay in qaraxan ay ku dhinteen 3 nin ee watay mootada, sidoo kalena uu dhaawac fudud soo gaaray qof kale oo shacab ah oo wadada marayay. waxa kale oo intaasi uu ku daray burbur kooban oo soo gaaray guryaha laamiga ku teesan agagaarka Hamador ama isbitaalka Yardameeri. dhanka kale taliska booliska Soomaaliya ayaa intaasi ku daray in haatan ay wadaan baaris ku aadan dhacdadaasi isla markaana wixii soo kordha ay la wadaagi doonaan shacabka. dhacdadaasi waxa ku bilowday baaris, wixii ku soo kordha ayaan ummadda la wadaagi doonaa ayuu mar kale Doodisho yiri. ugu dambeyntii taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya Birhanu Jula oo la hadlay warbaahinta ay maamusho dowladda Itoobiya ayaa waxa uu sheegay inaysan jiri doonin oo aan la arki doonin isla markaana waqtigoodu u dhamaaday ciidamada Liyu Police ee ay gaar u lahayn jireen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in la soo gabagabeeyay qorshihii dib loogu habeyn lahaa ciidamada gaarka ah ee deegaanada, isla markaana si guud la isla qaatay in ciidamada Liyu Police-ka lagu kala daro 3 hay'adood ee sharciga u leh sida sugidda amniga dalka iyo deegaanada, kuwaas oo kala ah militariga dalka, federaalka booliska iyo booliska maxalliga ee deegaanada dalka Itoobiya. qorshahan cusub ee dib loogu habeynayo ciidamada Liyu Police ayay dowladda Itoobiya ku sheegtay in lagu dan leeyahay in dalka laga hirgeliyo ciidamo adag oo suga amniga guud ahaan dalka Itoobiya, iyadoo hadda kadib ay meesha ka baxayso ciidamada Liyu Police ee sugaya amniga deegaanada iyo dalka Itoobiya. balse arrinta ka duwan ayuu madaxweyne Mustafa Cagjar uu dhawaan u sheegay ciidamada Liyu Police-ka Soomaalida, isagoo xusay in ciidamada Liyu Police deegaanada Soomaalidu ay sidooda ahaanayaan kaliya la bedeli doona dareyska iyo magaca, oo ay ka mid noqonayaan booliska caadiga ah ee deegaanka Soomaalida iyaga oo haysta hubkoodii iyo saanadii ay horay u haysteen. ciidamada Liyu Police ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2006 iyadoo deegaankii u horeeyay ee Liyu Police laga dhiso uu ahaa dowlad deegaanka Soomaalida waqtiga, oo sababtii loo aasaasay ay ahayd in ay la dagaalamaan jabhadihii waqtiga ka howlgali jiray deegaanka oo ay ka mid ahayd jabhadda ONLF. si kastaba haatee, arrintan lagu kala dirayo Liyu Police-ka ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli weli gobolada qaarkood ee ka tirsan dalka Itoobiya ay ka taagan tahay baahii loo aasaasay Liyu Police, isla markaana ay weli jiraan jabhado ka howlgala deegaanada qaar oo ka mid ah dalka Itoobiya, taas oo laga cabsi qabo haddii Liyu Police-ku ay meesha ka baxaan in halis amni ay ka iman karto.